safaarada Soomaaliyeed ee dalkan Kenya ayaa gargaar u sameysay Dhibane Xuseen Cali Cismaan oo ah nin Soomaaliyeed oo curyaan oo labada lugoodba ku beelay dhibaatooyinkii dalka Soomaaliya ka dhacay. waxaana safaarada Soomaaliyeed ay u iibisay Xuseen Cali Cismaan gaari uu ku sodcaalo maadaama ay dhibaato ka haysatay xilli magaalada Nairobi ay ku sugan yihiin dad Soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan. Ambassador Maxamed Cali Nuur America danjiraha Soomaaliyeed dalkan Kenya ayaa dhibanahaasi ku wareejiyay gargaar ay safaaradu u sameysay oo isugu jira lacag iyo sidoo kale to gaadhiga uu ku gurguuranayo. waxaa sidoo kale ay safaarada Soomaaliyeed ugu baaqday dadka Soomaaliyeed ee samafalayaasha in dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee Xuseen oo kale ay soo caawiyaan. ugu horeyn danjire Maxamed Cali Nuur America ayaa ka warbixiyay gargaarka ay u sameeyeen Xuseen Cali Cismaan. Xuseen Cali Cismaan maaldeedu yimid saarkaysan waa nin iskina oo jiisa labadaba ka goosan yihiin markuu yimid wuxuu ii sheegay in hadda uu karjiska xiriirka qaxootiga dibna uu ka haysto mataqaanaa gaari iyo waxba haysanin oo socodkana saa arkaysaan labadooda ay goosan yihiin anagoo taas fiirinayno ayaa hadda safaaradda waxaan gaarnay insha Allah taala inaan gacan siino ninkan Soomaaliga miskiinka ah asaad uu sheegi doono mataqaanaa si wax ugu dhaceen iyo meesha kale ilaa maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta noo suurtooday inaan kursi uu ku socdo aan maanta ku wareejino taasoo aan filan in dhibka hadda uu ka haysto iyo ay ugu sahal doonto diilaha. sidoo kale Xuseen Cali Cismaan ayaa uga mahad celiyay safaarada Soomaaliyeed oo ugu horeeyay danjire Maxamed Cali Nuur America gargaarka loo sameeyay waxaana uu shacbiga Soomaaliyeed kala ka codsaday in xaaladiisa caafimaad wax laga qabto. damaana muwaadin Soomaaliya nafa aad baan u dhibaataysanay dalkeena dawlad malaha oo nasaadiisa arrimaha gudaha baan محمد أحمد الكعسي تلفزيون كقرنكا نيروبي.